بسم الله الرحمن الرحيم وصباح نما أربعة سجال يلباتن كبشة أكتوبر سنة كلبكون لباتن يشن أو كوبعجن تضبط بشة جماد الأول سنة كن أفر بقول أفرتنية تضبط تاريخ الهجرية كسو دوادا مركله يبرامجكي حرشة ورركا قضبضة ساعة برامجك آن إذن كوها إننا وحا كبدا ugu yaraan 70 qof oo lagu dilay iyo 10 kale oo lagu dhaawacay weeraro cirka badda iyo dhulka ah oo Israa'iil ka wada Suuriyada Gaza. Militariga Israa'iil ayaa qirtay in askari ka mid ah ciidankooda lagu dilay koonfurta Gaza. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo si cad u sheegay in Israa'iil xaq u leedahay inay isdifaacdo, isagoo tibaaxay in weeraradan Israa'iil ay wado aysan ahayn xadgudub ka dhana rasaas joojinta. Trump ayaa sidoo kale digniin u jeediyay ururka Xamaas. Dalalkii Carabta iyo kuwa Muslimiinta ee qaybta ka ah heshiiskan isla markaasna Xamaas siiyay damaanad qaadka ayaan wax wara laga hayn xilli madaafiicda ay ku hoobanayso shicibka Falastiiniyiinta. Liibiya 18 qof oo ku dhintay dooni ay saarnaayeen taariibayaal oo maraysay xeebaha waddankaasi. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya oo dagaal uga digay Eritrea xilli ay xoogaysanayso xiisada u dhaxaysa Asmara iyo Addis Ababa ee ku salaysan dabaca bad ee Abiy Ahmed. Dhammaan wararkan iyo weliba warar kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka xulashada wararka. Soo dhawaada mar kale daawadayaal. si aad ula socoto oo hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno. Haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn, hadda ku soo biir. Waad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka. Saaka waxaynu ku bilaabaynaa masiibo laga soo warinayo xeebaha waddanka Liibiya, halkaasi oo la sheegayo dad taariibayaal ah inay ku dhinteen kadib markii doonida ay saarnaayeen ay la degtay. ugu yaraan 18 tahriibayaal ayaa la xaqiijiyay inay ku geeriyoodeen masiibadan oo ka dhacday xeebaha dalkaasi kadib markii doonidan oo alwaax ka samaysan ay la degtay. waxaana lagu soo waramayaa in la badbaadiyay 64 qof sida ay sheegtay hay'adda caalamiga ah ee socdaalka ee qaramada midoobay ee IOM. kuwa badbaaday ayaa 29 ka mid ah waxay u dhasheen waddanka Suudaan, haweeney, ilmo yar iyo 18 qof oo ayaguna u dhashay Bangladesh. sidoo kale 12 Bakistaaniyiin ah iyo 3 Soomaali ah ayaa lagu yiri bayaanka, iyagana waa la soo badbaadiyay, iyadoo hay'addu intaasi ku dartay in aan la helin wax macluumaad ah oo ku saabsan wadamada ay ka soo jeedaan dadka geeriyooday. hay'addu waxay xustay in dhacdadani ay tahay xusuusin naxdin leh oo muujinaysa halista weyn ee ay wajahayaan dadka ku safraya badda, kuwaasi oo baadi goobaya badbaado iyo fursad nololeed. badda Mediterranean-ka ee isku xirta waqooyiga Afrika iyo Yurub ayaa weli waxay ka mid tahay wadooyinka socdaalka ugu khatarta badan adduunka. IOM ayaa sheegtay in mashruuceeda raadraaca dadka maqan uu diiwaan geliyay 46 dhimasho ah iyo dad la la'yahay tan iyo bilowgii sanadkan 2025. waxaana la sheegayaa dadkaasi 527 qof inay ku dhinteen xeebaha Liibiya. masiibadani shalay dhacday ayaa timid toddobaad uun kadib markii 40 muhaajiriin ah ay ku dhinteen xeebaha Tunisia kadib markii doonidii ay saarnaayeen la qaraqantay. IOM ayaa sheegtay inay la shaqaynayso la howlgalayaal maxalli ah si loo hubiyo in dadka badbaaday ay helaan gargaar caafimaad, taageero nafsiyeed iyo mid adeeg oo aasaasi ah, iyadoo mar kale ku celisay baaqeeda ah in la xoojiyo iskaashiga gobolka, la ballaariyo wadooyinka socdaalka oo ammaan ah oo sharciyeysan, lana xaqiijiyo howlaha badbaadinta ee degdega ah iyo kuwa isku dhafan. imikana Addis Ababa aynu eegno. iyadoo xiisada ka dhex caloosan Itoobiya iyo Eritrea cirka ay ku shareeran tahay, ayaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed wuxuu carabka ku adkeeyay in dalkiisa uusan si ahaan doonin dal aan bad lahayn, isagoo xusay in helitaanka Itoobiya badda cas ay tahay arrin lama huraan ah oo noloshooda ku xiran. Abiy
ayaa carabka ku adkeeyey in Addis Ababa aysan doonayn dagaal balse ay awood u leedahay in go'aan adag ay qaadato haddii lagu qasbo isagoo uga digay Eritrea inaysan ku sii jiidin dagaal military xilli xiisadu ay sii kordhayso una dhaxaysa labada dal ee dariska ah. Abiy Ahmed wuxuu sidoo kale tilmaamay in dalkiisu uu diyaar u yahay in uu tago Casmara si uu bog cusub u furo xiriirka labada dal isagoo adkeeyey in nabadu ay tahay doorashada Ethiopia ay jeceshahay laakiin xuquuqda dalkiisa aysan marnaba ka tanaasuli doonin gaar ahaan marin badeed oo ay helaan. isagoo arrintan sii faahfaahinaya ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa daboolka ka qaaday inuu codsaday dhexdhexaadin gaar ahaan Mareykanka iyo Midowga Yurub si loogu helo xal waara oo nabadeed in dalkiisa uu helo marin badeed isagoo aan dagaal gelin. Abiy Ahmed ayaa bilooyinkii la soo dhaafay ku celcelinayay in dalkiisa uu leeyahay xuquuq uu ku yeesho dekad badeed halka Casmara ay ku eedeysay dowladda Ethiopia inay indhaha ku hayso dekada Casab ee Eritrea. manihin kuwa dagaal doonaya niyadana kuma hayno dagaal aynu la galno Eritrea taa bedelkeedii waxaan aaminsanahay in arrintan si nabad ah lagu xallin karo ayuu yiri Abiy Ahmed oo su'aalaha ay weydiiyeen xildhibaanada baarlamaanka dalka Ethiopia. Abiy Ahmed oo xilka qabtay sanadkii 2018 ayaa sheegay in wadahadallo uu la yeeshay wakiilo ka socda Mareykanka, Ruushka, Shiinaha, Midowga Afrika iyo Midowga Yurub isagoo ku nuuxnuuxsaday in codsiga Ethiopia ee marin badeedka uu yahay go'aan aan laga noqon karin. hadalka ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa yimid iyadoo xiisad xoog leh ay ka dhex taagan tahay labada dal ee geeska Afrika dhaca taasi oo dhalisay cabsi ah in dagaal cusub uu ka dhex qarxo. Ethiopia oo ay ku nool yihiin 130 milyan oo qof waa dalka labaad ee ugu dadka badan Afrika wuxuuna badla'aan ahaa tan iyo markii Eritrea madax bannaanideeda ay qaadatay 1993 Ethiopia iyo Eritrea waxay galeen dagaal dhiig badan oo ku daatay intii u dhaxaysay 1998 ilaa 2000 kaasi oo sababay dhimashada 10,000 oo qof sabab la xiriira muran dhanka xuduudda ah. xiriirka labada dal ayaa soo hagaagay 2018 markii Abiy Ahmed xukunka la wareegay isagoo heshiis isla markiiba la saxiixday madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki oo xukumayay Eritrea tan iyo 1993 hase yeeshee xiisadda ayaa dib u soo cusboonaatay sanadkii 2022 kadib dhamaadkii dagaalkii gobolka Tigreega kaas oo sababay dhimashada ugu yaraan 600 oo kun oo qof iyadoo ciidamada Eritrea ay garab siinayeen ciidamada Ethiopia ee la dagaalamayay falagada Tigreega ee gobolka waqooyi. bishii Oktoobar Ethiopia ayaa ku eedeysay Eritrea in ay maalgelinayso kooxo hubaysan oo dagaal kula jira ciidamada federaalka gaar ahaan gobolka Amxaarada iyadoo lagu eedeeyay faragelin isku day khalqalgelin iyo isxulafaysi ku salaysan in Eritrea ay taageerayso kooxaha ka dagaalamaya gobolka Amxaarada. eedeymahaasi Casmara waxay ku tilmaamtay sheeko been abuur ah. wixii waraah ee arbaha ay ku soo kordha barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbinaynaa haddii alla idmo. waxaan u gudbaynaa goordhow daawadayaal wararkii ugu dambeeyay Gaza halkaasi oo Israa'iil ay ka wado duqeymo xagga cirka dhulka iyo badda ah. Donald Trump oo ka hadlay mowqifkiisa la xiriira weeraradan Israa'iil ay qaaday. wararkaasi iyo warar kale intaan u gudbin aynu ku hakanno qadar xayeysiina. dhawaada mar kale daawadayaal wali waxaad la socotaan barnaamijkii xulashada wararka oo subaxnimadan Arbacada ah toos idinkaga imaanaya stuudiyaha iyaga koowaad. barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka iyo Telegram-ka. warbixino qoraal ah, warar faaclooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan bogga internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com. ku xirnaa HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka. waa hagaag xagga Gaza aynu haatan u leexanno halkaasi oo duqeymo tan iyo xalay Israa'iil ay ka wado. sidaad kula socoteen barnaamijkii xalay aan idiin soo gudbinay ee qubanaha Israa'iil waxay isku raacday in ay qaado duulaan culus ilaa iyo saakay weeraray way socdaan. haddaba maxaa ugu dambeeyay? ugu yaraan 70 qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen duqeymahan Israa'iil ay ka wado jiida Gaza.
inkastoo la gaaray xabad joojin u dhaxaysa xarakada xamaas iyo ciidamada Israa'iil. ila wareejada ayaa faahfaahiyey in 24 caruur ay ka mid yihiin dadka la dilay halka duqeymahana sidoo kale ay sababeen dhaawacyo aad u fara badan. doomo dagaal taangiyada ciidanka Israa'iil ayaa sii wada duqeynta dhanka xeebta agagaarka magaalada Rafah ee koonfurta Gaza, iyadoo duqeymaha xagga cirka mar kale ay ka socdaan qaybo kala duwan oo ka mid ah Suuriyada Gaza, gaar ahaan Khan Yunis iyo Deir Balah, halkaasi oo xadgudub cusub laga soo sheegayo rasaas joojinta in Israa'iil ay ku samaysay. goobjoogayaal ayaa sheegaya in kooxaha gurmadka degdega ay la kulmayaan dhibaatooyin badan oo ku saabsan soo saarista dadka la la'yahay sababo la xiriira duqeynta joogtada ah iyo diyaaradaha dagaalka Israa'iil ee dul heehaabaya hawada Gaza. dhankiisa ciidanka Israa'iil waxay qirteen in hal askari oo ka tirsan ciidankooda uu ku dhintay dhanka Rafah kadib markii la weeraray cutub ciidan oo halkaasi ku sugnaa saacadihii la soo dhaafay. 9kii bishan Oktoobar 2025 Xamaas iyo Israa'iil waxay gaareen heshiis xabad joojin ah oo garwadaan uu ka ahaa Mareykanka, ayna qayb ka ahaayeen Qatar, Masar iyo Turkiga. wejiga koowaad heshiiska ayaa waxa uu dhigayay in la isweydaarsado maxaabiis lana joojiyo dagaalka isla markaasna loo ogolaado in gargaar bini'aadantinimo la geeyo Mareykanka Gaza. laakiin Israa'iil waxay sii waday duqeynta tan iyo xilligaasi 150 qof ayaa la dilay. dhinaca kale war amuurahan ay ku saabsan ayaa goordhaweyt waxa uu ka soo yeeray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Trump ayaa waxa uu sheegay waa sida dalka u dhigaya in Israa'iil ay xaq u leedahay in ay isdifaacdo, isla markaasna xarakada Xamaas ay tahay qayb yar oo ka mid ah waa sida dalka u dhigaya heshiiska bariga dhexe, sida ay tibisay wakaaladda wararka ee Reuters. Trump ayaa uga digay Xamaas waa sida dalka u yiriyay in aysan u dhaqmin haddii aysan u dhaqmin si wanaagsan in la tirtiri doono, isagoo intaasi ku daray in xabadjoojinta Gaza ee Mareykanka uu taageerayo aysan halis ku jirin, inkastoo duqeymaha Israa'iil ay dileen 70 qof isla markaasna dhaawaceen dad aad u fara badan. Trump wuxuu yiri waxba halis ma aysan gelin xabadjoojinta Gaza, waxay dileen askari Israa'iiliya, sidaas darteed Israa'iil waa ay ka jawaabtay, waana inay jawaabtaa mar kasta oo sidaasi ay dhacdaana waa inay ka falcelisaa. isla wararkan hay'adda warbaahinta Israa'iil ayaa ka soo xigatay sarkaal Israa'iili ah oo sheegaya in tilaabo kasta oo Israa'iil ay qaadayso oo Mareykanka Gaza ku wajahan ay u baahan tahay ogolaansho Mareykanka uga yimaada. arrintani si cad ayaa loogu sheegay ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu. warbixinta ayaa intaasi ku dartay in qiimaynta guud ee Israa'iil ay tilmaamayso in Mareykanku uusan ogolaan doonin tilaabooyin ballaaran ama duulaal ballaaran oo Israa'iil qaado, taasi oo la macno ah Israa'iil inaysan awoodin in ay samayso wax kasta oo ay doonayso. laakiin warkan waxaa ka dambeeya warka Trump oo leh Israa'iil waxay xaq u leedahay in isdifaacdo oo jawaabna ay bixiso. war kale oo arrimahan la xiriira wargeyska Maarif ee ka soo baxa Israa'iil ayaa ka soo xigtay sarkaal kale oo sheegaya in qorshaha lagu ballaarinayo dagaalka iyo weliba aagaga ciidanka Israa'iil ay ku sugan yihiin ee qadka jaalaha imika si buuxda loogala hadlayo dhanka Mareykanka. sarkaalka ayaa cadeeyay in xilligan aysan jirin niyad lagu doonayo in la burburiyo heshiiska xabad joojinta, laakiin waxaa la tilmaamay Israa'iil inay diyaar u tahay in ay bixiso jawaab kasta oo ku wajahan wax lagu tilmaamay xadgudubida Xamaas ay sameynayso. haddaba waynu aragnaa Mareykanka madaxweynahoodii wuxuu leeyahay Israa'iil xaq bay u leedahay inay isdifaacdo, waana inay jawaabtaa mar walba oo lagu soo xadgudbo. Israa'iilna waynu arkaynaa, laakiin ilaa iyo hadda waxaan lahayn waddamadii carabta iyo kuwii muslimiinta, gaar ahaan Turkiga, Qatar iyo Masar, oo dhanna ka damaanad qaaday heshiiska xabad joojinta, dhanna damaanad u qaaday in dagaalka aan lagu laaban doonin. laakiin muddo ka yar 24 saacadood 70 qof ayaa la dilay, tiro intaasi ka badanna waa dhaawacmeen. 24 qof waa caruur dadkaasi. weliba sida telefishinka Al Jazeera uu tabinayo, goobaha la duqeeyay waxaa ka mid ah teendooyin. qobrada waxay isweydiinaysaa maxay tahay sababta teendhada loo beegsanaya. Israa'iil intaas dagaal bay waday,
kuma aysan guulaysan maxaabiista inay soo furato kuma aysan guulaysan inay hubka ka dhigto Xamaas kuma aysan guulaysan inay burburiso laakiin duqeyntan cirka badda iyo dhulka ah maxay ka macnatay la isweydiinaya dadka shacabka baa laga argudanaya sida warbaahinta Israa'iil qortay toddobaadkan Xamaas waxa leeyahay 20 ilaa 15 kun oo dagaalamayaal ayaa u diyaar ah welibana godadka sida uu qirayay wasiirka gaashaandhigga Israa'iil 60% godadka way bad qabaan dhulka hoostiisa ah waan la arkayda wayna muuqataa ayaa leeyahay marba hadii la soo furtay aan ku celiyay marba hadii aysan Israa'iil ku guulaysan inay soo furto maxaabiisteedii oo heshiis lagu soo daayay waxa laga warsugayaa waxay tahay wadamadan damaanada qaaday ee Xamaasna ku yiri soo daaya dadkan aad haysataan waxaana ballan qaadayna dagaalkan inaan dib loogu laaban dadkaas ayaa waxa leeyahay maanta waxa u yaal hal xiraala aad u adag maxay ugu jawaabi doonaan dadka Falastiiniyiinta iyo waliba adduunka qobrada qaar kamid ah waxay leeyihiin heshiiskan sidiisaba muhiim wuxuu u ahaa Mareykanka iyo Israa'iil ilaa maxaabiistii baa la soo daayay arrin kale muhiim ayaa jirtay heshiiska markuu soo bandhigay madaxweynaha Mareykanka waxa si dardar leh ku socotay aqoonsiga dawladda Falastiiniyiinta ay yeeshaan Israa'iil oo go'doon ku jirtay xayiraad ku jirtay cunaqabatay in la saaro ku dhaweyd laakiin heshiiskan waxa leeyahay wuxuu qowlka ka furay surka kaga xirnaa ama xarigii surka kaga xirnaa Israa'iil marka waynu arki doonaa wixii arrimahan ku soo kordha barnaamijka wararka maanta waxaan idinku soo gudbinaynaa falaqayn arrimahan ku aadan oo khubaro ay ka hadlayso saacad kadib ayuu soo geli doonaa barnaamijku inta ayaa ku soo gabagabeynaya barnaamijkii xulashada wararka waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan barnaamijyadan iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo